السلام عليكم ورحمة الله. maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay naysayers dadka la dhaho ama naysayers qof walba soo yaqaan ama dadka hadallada xun dhaha ama qofka aana dhiirigelin oo hadallada xun ku yiraahda. Channelkayga waxaa u barateen inaan ka hadlo fitness dhiirigelin waxaas. So maanta waxaa ka hadli doonaa dadka hadallada xun commentiga ku reeba Instagramka, Facebooka, YouTubeka, meel walbo. Hataa Snapchatka maalmahan meel lagu badbaadayo ma aha. So dhawaanahan waxaa helaya hadallo xun dadaa hataa waxay gaareen inay familkayga reerkayga caayaan. Marka video ayaa ugu talagalnaa la hadlo hadallo wanaagsan ku dhaho, sababtoo ah hadal wanaagsan hadal xun qofka ugu dhaho hadal xun looma celiyo. hadduu hadal xun kala tarayo macnihii Soomaaliya ay ku heshiin lahayd. Marka waxaa rabaa inaa hadallada xumaay hadallo wanaagsan ugu bedelo qofkii ugu yiri ama dadkii ugu dhaheen hal qof laba qof ma ahan. So waxaa rabaa inaa ku weydiiyo hal su-aal. Qofka caynaysid ama waxaa ka sheegaysid muxuu kaa sameeyay? Su-aal rabaa inaan ku weydiiyo. For example, hadda video ayaa soo dhigay qof ayaa wax ka sheegay ama aniga wax iga sheegay. Horta waxaa rabaa wax la adduunka inaa ogaatid wax la opinion wax la ama farqi kala duwanaansho. Dadku idil isku wax ma aha fikrad. Dadku idil isku wax ma aha. Haddii wax ka hadlayo wax ka qabtid qofka comment ugu reeb sidaas khalad ku sameysay ama sidaan khalad ku sameysay ama message ugu reeb. laakiin haddaa soo qortid oo bla 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 qof xunaa tahay maxaa u sameynaysaa sidaan stupid tahay oo wax faa'iido qofka wax faa'iido ma soo kordhinin. Labo adiga dambi is gelisay qofkii aan walaalka hadalkii wanaagsan ugu farxi lahaa waxa uu badashay hadal xun. So marka waxaa rabaa inaan ku weydiiyo maxaa faa'iido midda labaad. sababta noocaas ma ogin, laakiin waxaa ka faa'iideyna ogaada qof kala caynaya ama qof kala hadal negative ku dhahay. waxa ma ka faa'iideysid dambi ahaan. midda kale aniga waxa igu dhehaysid ama qofka kale YouTube-ka ku dhehaysid qofkan adoo asoosan ku aqoonin ay YouTube-kan furtay adi daraada muusan u furan hadal aad dhahdidna uma joojinay maanta. shalay marka ay caynaysaan sideeda ahay maanta waxaa laga yaabaa inaad sii wanaagsanahay, maybe farxadeed badatay, maybe caafimaadkayga uu sii kordhay. marka hadalkaaga meel igama jaraya ama wax igama goynaya aniga, laakiin waxaa rabaa inaad ku sheego hadalka ay ugu dhehaysid aad ayuu dhiirigelinayaa. sababtan waxay tahay marka aan wax iga sheegtid ama qof kale familkayga ama waxaa ka sheegtid waxaa ogaanayaa wax aad sheegaysid inaysan waxba ka jirno oo negative leh qof wata aad tahay. anigana dhiirigelin aan ka helayo sababtoo ah adigana waxa aad sheegaysid ku prove garaya rabaa khalad inaad tahay kudsiyo, sababtoo ani dhiirigelin ayaa ka helaya meeshaas. So ana ii fududeysay hawshaa qaban lahaa. marka waxaa ku dhihi lahaa haddii aad soo kacdid videoga imaadid aad daawatid maybe 5 daqiiqo 6 daqiiqo video oo video 6 daqiiqo aad daawatay hal daqiiqo comment negative qortay 7 minute noloshaada iska dhumis, laakiin aan wax igama dhumin ama qof kale wax ka sheegayso wax maadan ka dhumin. So waxaa ku dhihi lahaa at least haddaad waxa sheegtay aadan haynin waa la iska aamusaa. rasuulkeena saasoo dhahay Soomaa haddii micnihii qofka hadal ku dhahda aadan u haynin afkaaga iska xiro. haddii hadal positive aadan haynin afkaaga iska xiro. inta afka furan leedo adigana labada malaa'ig garbaha saaran shaqo aad siin lahayd waxaa ku dhihi lahaa iska aamus hadalkaaga iska xiro. saa hore u sheegayna hadalka aad dhahdid waxba igama jaraya aniga waxna iguma kordhinayo, laakiin dhiirigelinaya ka helaya. marka qof cadow ama qof hadal ku dhehaysid ma aha qof cadowga, waa qof walaalka Soomaaliya. marka qof kaaga dhow yahay inaad si fiican usoo dhaweystaa fiican, inkastoo qof inaa xumaysidba aysan ahayn, laakiin haddana qof kuu dhow waa qofka wanaajin lahayd. maanta haddaa isu xumaysid ma aha qofka wanaajinaysa qof kale ma aha. So waxaa ku dhihi lahaa waqtigaaga iska dilin inaa YouTube imaadid noloshaada waqtigaaga dishid qofna hadal xun u reebtid waxba ku kordhayaan, laakiin waxaa tusinaysa inaad jahli tahay. sababtoo ah qof caqli leh ama caqli u saaxiib ah inuu qof kale soo YouTube-kiisa imaado hadal xun waqti ma iskaga dhumin lahayn. ilaan howluhu qabsanayo ayuu ogi ka badan yahay. bilaw videogan waa sheegay haddaa farqigayga ama opinionkaaga kala duwannahay ii sheeg ka hadal waa khaldan tahay opinionkaaga uu khaldan yahay sidaan samee sidaas kugu filan. marka video ma dheereynayo qof hero ama naysay video ilaa 10 minute ma siinayo.
insha allah intii oo hadallada wanaagsan ii soo qorto maasha allah hadalladiina aad ay ugu farxaa waanay dhiirigelisaan inta hadallada ii soo xun soo qorto hadalkiina waxba igama jaro way dhiirigelisaan idinkana sidoo kale marka waxaa ku dhihi lahaa iska daa waqtiga aad dilaysid qof walaalkaana xumaan ku sameynaysid channelka haddaa ku cusubtaa waa taqaana wax la sameeyo subscribe-ka lacag maaha like-ta lacag maaha peace out